Tan iyo xalay waxaa laga maqlayay magaalada Venice ee dalka Ukraine digniinaha lagu ogeysiiyay dadka inay soo socoto duqeyn dhanka cirka ah. Tan waxay ka dambeysay marka uu Ruushku ku sii fiday dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka Ukraine. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu sheegay in Vladimir Putin uu bixin doono dhibta uu geystay. Waxa badanaysa tirada carruurta wax ku noqonaya dagaalka ka socda dalka Ukraine. Wiilkan yari waxa uu hortiisa ku waayay aabihiis, isagana waxa soo gaaray dhaawac aad u daran. Waxaana jira carruur badan oo dhaawac iyo dhimashaba kala kulmay dagaalka. Magaalada ku taalla dhanka koonfureed ee la yiraahdo Mariupol waxay muddo toddobaad ah la nooshahay duqeymo cirka oo kaga imanaya Ruushka. Waxa uu isku dayay Ruushku inuu xiro dhammaanba marimihii ay dadku ka baxsan lahaayeen, sida uu warbaahinta u sheegay Sergey Orlov oo ah isagu ku-xigeenka duqa magaaladaas. Welina waxaa ku socda duqeyn aan loo aabayeelayn, waxaana ciidamada Ruushku u xireen wadooyinka ay u mari lahaayeen gargaarka degdegga ah. Madaxweynaha dalka Ukraine oo la hadlay dadkiisa waxa uu sheegay in looga baahan yahay inay dhexda xirtaan dalkoodana difaacaan. Waxaa weli socda duqeymaha ciidamada Ruushku ay la beegsanayaan saldhigyada ciidamada dalka Ukraine. Kan waa saldhig ay lahaayeen ciidamada cirka ee dalka Ukraine oo ay saaka burburiyeen ciidamada Ruushku. Kale waxaa satellite-ka laga arkayaa goobo ay degan yihiin dad rayid ah oo ay gantaalo la dhacayaan ciidamada Ruushku. Filimkan ay soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga Ruushku waxa uu na tusayaa ciidamada Ruushka oo raadinaya inay halkaa ku sugan yihiin iska caabiyayaal u dhashay dalka Ukraine. CCTV-gan waxay qabatay duqa magaalada Mariupol markay ciidamada Ruushku qabsadeen oo isagu ilaa hadda gacantooda ku jira. Dadweynaha magaaladaas iyo dhammaanba magaalooyinka Ukraine waxay ku baaqayaan in ciidamada Ruushku ay si degdeg ah u sii daayaan duqa magaalada Mariupol ay gacanta ku hayaan. Madaxweynaha dalka Ukraine oo ka hadlay arrintaas waxa uu Ruushka u sheegay in ay si degdeg ah oo shuruud la'aan ah duqa magaalada Mariupol u sii daayaan. Waa qofkii ugu horreeyay siyaasadda xil sare ah haya oo ay ciidamada Ruushku qabsadeen welina gacantooda ku jira. Marka la eego dhibaatada soo gaartay dadka rayidka ah ayaa ah iyadu tan ugu badan. Dhimashadu waxay kor u dhaaftay 1500, waxaana baaba'aya dhammaanba dhismayaashii Ukraine haddii ay lahaan lahaayeen ciidamo iyo kuwo dadweyneba. Maalinba maalinta ka dambeysa xaaladda Ukraine waa mid sii adkaanaysa. Kulankii ay midowga Yurub ku lahaayeen magaalada Versailles ee dalka Faransiiska waxay ka soo saareen go'aan ay ku diideen in Ukraine si degdeg ah uga mid noqoto midowga Yurub. Ukraine ayaa 20kii bishii labaad codsatay in midowga Yurub si degdeg ah loogu ogolaado, taasoo dad badan ay u arkayeen inay ku doonayso garab u dagaalama iyada. Markii uu soo dhamaaday kulan midowga Yurub ay ku lahaayeen magaalada Versailles ee dalka Faransiiska, waxaa lagu diiday codsigii in si degdeg ah uga mid noqoto golahaas. Ka mid noqoshada midowga Yurub ayaa ah mid qaadata muddooyin sanooyin ah, taasoo marka hore baaritaan lagu sameeyo dowladdaas dhaqaale ahaan, musuqmaasuqa heerka ay ka joogto iyo xorriyadaha kala duwan oo dadka ku nool ay haystaan. Waxaa la fiiriyaa dadkaasu inay u dhigmaan amaba ay la jaan qaadi karaan dhaqamada reer galbeedka si buuxda. Waxaa jiray dalal iyagu dabada riixayay si degdeg ah in Ukraine loogu ogolaado ka mid noqoshada midowga Yurub. Sidoo kale waxaa jiray dalal iyagu aad uga soo horjeeday arrintaa. Waxaa inta badan ogolaa in si degdeg ah uga mid noqoto midowga Yurub dalalka bariga Yurub, halka ay ka soo horjeedeen dalalka awoodda leh sida Jarmalka iyo Faransiisku oo ugu dambeyntoodii ay hirgashay. Ka mid noqoshada Ukraine ee midowga Yurub si degdeg ah waxay ahayd mid ujeeddo siyaasadeed lahayd iyo inay ku hesho difaac. Diidmada hadda la diidaysa waa mid ku ekaanaysa oo keliya in loo diiday inay si degdeg ah ugu biirto, balse codsiga ay soo gudbisatay waa mid la sii fiirin doono sida dalalka kale ugu biiraanna laga yaabo waqti dambe inay ku biirto. Fadlan ku xirnow kanaalka subscribe saar. Mahadsanid.